habeen wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan u diyaar garooba idaacaddeena habeennimo inaad ka daawataan janalkeena youtube-ka sirta wararka waa habeennimo isniina talaada ayaa soo gelaysa saaxiibayaal taariikhdu waxay ku beegantahay 6 Diseembar sanadka 2021 idaacaddeena habeennimona qodobada aad ku daawo doontaan waxaa qayb ka noqon doona xubnaha midowga musharaxiinta oo ku kala qaybsamay dhismaha golaha badbaado qaran laba oo la dhisayay haddaba waa maxay waxa keenay inay kala qaybsamaan xogii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqa midowga musharaxiinta iyo inay laba dhinac u kala jabeen ayaan macluumaad idinkaga hayaa caawa waxa kaloo saaxiibayaal qayb ka noqon doona abaabulka ciidanka badbaado qaran laba oo weli si xuul ah u soconaya israa'iil hooshasi loo xil saaray ra'iisul wasaare Roble oo muujid cusub u wareejiyay buuqii doorashada Soomaaliya ka dhalatay iyo khudbad uu jeediyay maanta ra'iisul wasaaraha ayaa si buuxda khudbadiisa ugu daawo doontaan warkeena dowladda Norway oo hal sharti ku xirtay inay taageerto doorashada Soomaaliya dhaqaalan ay ku bixiso muxuu yahay halkaasi shardi waa idin soo gudbin doonaa madaxweyne Saciid Cabdilaahi Dan oo durba kala furfurid ku bilaabay madaxdii gudoosaneed ciidanka PIF ta Puntland Israa'iil muhiima oo dhanka Saciid Dan ku soo wareegtay xaaladda Boosaaso caaw aad u xasiloon dhaqdhaqaaqa Boosaaso wararkii ugu dambeeyay waan soo qaadan doonaa kama marna wararkii ugu dambeeyay arrimaha doorashooyinka TPLF iyo dagaalada Ethiopia mar kale aad u sii qarxay qodobadani kuwa kale muhiim ayaan ku soo qaadan doonaa idaacadeena caawa qayb ka noqo saaxiibada ku xidhan channelkeena subscribe noo dhig gambaleelkana taabo si kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinadeena habeennimo soo dhawaada saaxiibayaal aan ku bilaabaysa midowga musharaxiinta ayaan ogaanay inay ku kala qaybsameen hanaanka loo wajahayo dhismaha golaha badbaado qaran laba oo ah golo ay maalmihii dambe ku shiriyeen sida loo dhisi lahaa ila wareedo lagu kalsoon yahay oo u dhadhow xubnaha midowga musharaxiinta ayaa janaalkeena sirta wararka u xaqiijiyay in xubnaha midowga musharaxiinta ay laba dhinac u kala qaybsameen dhismaha golaha badbaado qaran xogtu waxay intaa ku dareysaa in ujeedka ugu weyn laga lahaa dhismaha golaha badbaado qaran ay ahayd in golahan marka la dhiso kadib golahan uu ka shaqeeyo doorasho barbar socota doorashada aqalka hoose ee dowladda federaalka ay qabanayso maadaama doorashada hadda socota ay mucaaradku ay saluugeen ayna qaadaceen natiijooyinka doorashada maadaama ay sheegeen inay jirto ku shubasho iyo boob xoog leh kuraasta qaarkood xubnaha midowga musharaxiinta ayaa la sheegay in qaarkood talaan u soo jeedeen in dhismaha golaha badbaado qaran dib loo dhigo dhismihiisa oo aan lagu degdegin fursadna la siiyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya halka xubno ka mid ah midowga musharaxiinta ay soo jeedeen in fursad wada hadal iyo waan intaba ay soo idlaatay oo waqtigaas oo dhanba naga soo idlaaday waxayna dalbadeen dhismaha golaha badbaado qaran laba loogu magac daray golahaas oo qaban doona doorasho kale cusub oo ka dhici doonta Muqdisho waxaa ila wareedada ay sheegeen in laba dhinac u kala qaybsameen go'aankan uu noqday mid lagu guul dareystay kala qaybsanaanta iyo kala aragti duwanaanshaha mucaaradka ayaa la sheegay inay soo bilaabatay maalintii Sabtida markii uu bilaawday wajigii labaad ee shirkooda Sabtidii Axadii iyo maanta Isniin ayaa la sheegay in shir 3 maalmood socday la rabay in xarintani lagu xalliyo sidoo kale arinta waxa banaanka keenay oo xogtani soo dusiyay madaxda maamul goboleedyada gaar ahaan labada madaxweyne Puntland iyo Jubbaland ay mucaaradku rabeen inay ku soo daraan dhismaha golaha oo ay qayb ka dhigaan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Dan ayaa intii warkiini galab daawatay aan kula wadaagnay inuu ka baxay heshiiskaas oo uu diiday inuu qayb ka noqdo dhismaha golaha badbaado qaran laba arrimahan dhan ayaa la sheegay in sabab u noqotay in mucaaradku isku fahmi waayaan Cabdikariin Xuseen Guuleed Xasan Cali Qeyre iyo waliba sidoo kale musharaxiin kale badnan ayaa la sheegay in isku aragti ka noqdeen in ra'iisul wasaaraha fursad la siiyo oo la jeejiyay dhismaha golahan halka Cabdiraxmaan Cabdishakuur Xasan Sheekh Shariif Sheekh Axmed Daahir Maxamuud Geelle ay dhammaantoodba isku wada raaceen dhismaha golahan iyo awood military in markaan la eego Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa la sheegay inuu shakhsiga sida weyn uga adag dhismaha golahan in awood military la tijaabiyo halka kaliya Cabdiraxmaan uu sheegay in taas ay noqon karto mucaaradka haddii laba dhinac u kala dhantaalmaan oo ay isku fahmi waayeen ayaa la sheegay in tani fursad weyn u tahay kooxda ololaha farmaajo oo ayna wulul xoog leh ka qabay in doorasho kale barbar socota in caasimadu ay ka bilaabato xogtuse waxay intaa ku dareysaa in rajada ah in xubnaha midowga musharaxiinta ay isku yimaadaan xal laga gaaro ay sahlan tahay sida wararku ay sheegayaan waxaa lagu ballamay shirar kale oo maalinta berri oo Talaadaha Arbaco ilaa Khamiis socon doona shirarkaas ayaa la sheegay in xal lagu keeni doono isfaham oo imaan doona sida ila wareedada ay noo xaqiijiyeen
mucaaradka ayaa isha lagu hayay dhaqdhaqaaqooda shirkii hotelka Jazeera ka soconayay waxa ugu weyn ee la fili karay inuu soo baxo ayaana ahaa dhismaha golahan badbaado qaran labo laakiin hadda dulduleelyo iyo waliba kala dhantaal ayaa ku yimid sidan xogta ku helay عمر عبد الرشيد علي شرماركي بروفيسور جواري عبد الله علي سنبلول شيء إسرائيل كليا شاركوا بيرت الشركة وحونها إن لبلارية الشركة ومدحها مامول قبلية كلاه بنتلان جبران نقيب كنقضان مركز عدود موقته أول لإصاب بحكرتها ولا لبر بردي كركوحدة فرماجة سان حقته كوهلي لكن أرنتا صدنا يا هذا دبور عليه وحي سكرنا صاحبيال إذا عدنا كله بريء صوحني ما يعني كوسو قد بنتنا madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa durba bilaabay inuu kala furfuro madaxda ka gudoosaneed saraakiisha ciidamada PIF-ta kuwaas oo qaarkood diiday xilka qaadista madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa ku guuleystay inuu kala furfuro madaxda ciidamada PIF-ta ee ka soo horjeeda ama diidnaa xilka qaadista lagu sameeyay agaasime Maxamuud Cabdullaahi Cismaan Diyaano agaasimaha cusub ee PIF-ta Puntland General Amiin Xaaji Kheyre oo maanta xilka lagu wareejiyay xarunta cusub ee ciidanka PIF-ta Puntland ayaa ku soo wareegay dhammaanba arrinta isagoo kontroolay dhammaan saldhigyada iyo hubka isaanada military gaashaale sare Cabdiraxmaan Idil oo ku-xigeenka sarkaalkii xilka laga qaaday ayaa sidoo kale ku soo biiray xubnaha Saciid Dani arrintan ayaa loo arkaa in talaabada ugu weyneed uu qaaday Saciid Dani oo uu kala furfuray xubnihi asaga ka soo horjeeday ciidamadii hubeysnaa tani ayaa dhigtay in xaaladda Boosaaso la badbaadiyo oo mar Boosaaso galirta xal military ama dagaal ka dhaca telefishinka maamulka Puntland ayaa soo bandhigaya muuqaalada labada sarkaal ee taliyaha cusub oo magacaaba Dani iyo waliba ku-xigeenkii Cismaan Diyaano oo asna dhanka Dani ku soo wareegay oo maanta xilka la wareegay labaduba ayaa la soo bandhigay sidoo kale waxa la soo bandhigay ciidamadii ugu badnaa isaanada military ee xarunta PIF-ta Puntland ee Boosaaso tani ayaa ka dhigan in kooxda Cismaan Maxamuud Diyaano iyo kooxdooduba ay meesha ka baxeen gordhow khudbadii Rooble ayaa idiin soo gudbin doona hase yeeshee dowladda Norway waxa ay hal shardi ay ku xirtay in ay taageeri doonto doorashada Soomaaliya muxuu yahay shardigaasi war saxaafeed ka soo baxay dowladda Norway ay ku leedahay magaalada Muqdisho safaaradeeda ayaa waxa ay sheegtay ama ka hadashay xaaladda dalka gaar ahaan doorashooyinka 2022 ee socda Norway ayaa ballan qaaday inay taageeri doonto Soomaaliya balse waxay ku xirtay taageeradeeda in doorashada ay noqoto mid xalaal ah lagu kalsoonaan karo dhinacyaduna ay ku qancaan kadibna ay bixi doonto dhaqaalaha doorashada Norway waxa ay taageeraysaa baaqa caalamka ah in doorasho xalaal ah oo lagu kalsoonaan karo Soomaaliya ka dhacda ayaa lagu yiri bayaanka qoraalka la soo dhigay bogga Twitter-ka ee safaaradda ayaa waxa lagu sheegay in si joogto ah dowladda Norway u taageeri doonto geedi socodka doorashada iyadoo bixi doonto dhaqaalaha doorashada waxa la joogaa waqtigii lagu gudbi lahaa isqabsiga iyo waliba kala qubnaanta dhanka doorashada ah waan taageeri doonaa dhaqaalaha laakiin waa inay noqoto doorasho hufan ayaa lagu yiri sidoo kale Norway ayaa sii raacisay haddii hoggaan wanaagsan la helaa ee Soomaaliduna ku qancaan ay bixin doonaan dhaqaalaha doorashada dowladda Norway ayaa kamid ah dowladaha Yurub ee taageera Soomaaliya qaybna weyn ka qaata bixinta dhaqaalaha mushaaraha dowladda la siiyo Soomaaliya hata waxa ka jirta dood culus oo ka dhalatay doorashada golaha shacabka oo meelaha qaarkoodna dhaliil badan laga jeedinayo markan iyo khudbadii Rooble maanta uu jeediyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta daafur shir ballaaran oo looga hadlayay arrimaha la xiriira doorashooyinka iyo caqabadaha jira shirkan oo loogu magac dardargelinta geedi socodka dowladnimada ayaa waxa diiradda lagu saaray xaaladda kala guurka ee dalka Rooble ayaa khudbad ka jeediyay furitaanka shirkan wuxuu shaaca ka qaaday in xaalad xasaasi ah dalka ku jira xukuumaddiisana ay qaadi doonto tallaabooyin dhowr ah oo lagu xalinayo cabashooyinka doorashada Rooble markii ugu horeysay wuxuu meel fagaaraha ka qiray in xukuumaddiisa culays weyn uu haysto oo doorashada ka haysto maalmihii dambe waxaa soo baxay culays weyn oo beesha caalamka inkastoo si dadban u qiray Rooble haddana waxa uu sheegay in xukuumaddiisu ay dadaal xoog leh ku bixi doonto xal u helidda mushkiladaha doorashada ka dhashay khudbadda ra'iisul wasaare Rooble ayaa idiin soo gudbin doonaa asaga ayaan ugu dambeyn doonaa warkeena caawa saaxiibyal nabadgelyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامتين دمان حبناها ورد بالشدة قبرة صوماليات هي مرت شرفتك للدوان إيمانتي كسوق يبقى شيء كلن كان مركه هره وحن إنك جمع هالعلنا يا كسوق يبقى لك كلن كا وضع تشجع تابع جلينتا اسمها جد سعد كدول النمذا حلقة كلا جوركا أنا قلت حراعية qodobadii heshiiskii 7 كمي tilmaamayay joogteynta
iyo ka wada tashiga geedi socodka dowladnimada Soomaaliyeed. inta aan ku guda jirno doorashada waxaan sidoo kale go'aansanay in xafiiskayga isagoo kaashanaya bulshada rayidka, dowlad goboleedyada dalka, hay'adaha federaalka iyo cid kasta oo talo iyo tusaale ku biirin karta qorshaha geedi socodka xukuumadda ee xilliga kala guurka, in aan bilowno kulamo wada tashi oo wax ku ool ah kuwaas oo aan la yeelanayno hay'adaha kala duwan ee xukuumadda, dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, hay'adaha sharci dejinta iyo kuwa garsoorka, hay'adaha madax bannaan ee dowladda, ururada bulshada iyo khubarada Soomaaliyeed. mudanayaal iyo marwooyin, waxaad ogtihiin kadib kulamo wada tashi iyo heshiisyo siyaasadeed in dalka ay ka bilaabatay doorasho, haddana doorashadii aqalka sare soo gabagabowday, tii golaha shacabkana lagu guda jiro. waxaad kaloo ogtihiin in ay jiraan tabashooyin iyo dhaliilo ku aadan habsami u socodka iyo hufnaanta doorashooyinka. caqabadahaas iyo dhaliilahaas waxay ka kala yimaadeen musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka, kuwa u tartamaya kursiga madaxtinimada, bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan iyo beesha caalamkaba. kadib markaan dhageystay una kuurgalay cabashooyinkaas iyo dhaliilahaas, waxaan wada tashiyo ku bilaabay sidii macluumaad dheeri ah loo ururin lahaa, waxna looga qaban lahaa cabashooyinkaas iyo dhaliilahaas. sidaad la socotaan, waxaan xalay bawaadiyey dadaalkii guddiyada doorashada ee hufnaanta doorashada iyo sixitaanka wixii qalad ah ee dhacay. waxaan sidoo kale madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ku booriyey ilaalinta habraacyadii doorashooyinka ee lagu heshiiyey, cadaaladda, daahfurnaanta doorashada iyo madax bannaanida guddiyada. mar kaleba waxaan ku celiyey, haddana ku celinayaa in madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waa dowlad goboleedyada in ay ilaaliyaan madax bannaanida guddiyada doorashooyinka, aysan ku milmin siyaasadana aysan la gelin guddiyada doorashooyinka. waxaa iga go'an in aan saxno wixii qaladaad ah ee jira, sarana u qaadno hufnaanta iyo habsami u socodka doorashada sida ugu dhaqsiyaha badan. waxaan garowsannay muhiimadda ay leedahay in ay qabsoonto doorasho hufan oo xalaal ah, laguna wada kalsoonaan karo, si nabad ahna ku dhacda. waxaan qaaday tallaabooyin hordhac ah oo xoojinaya hufnaanta doorashada ee ku kooban 9 qodob. waa run, waa dhegaysanay cabashada shacabka, musharaxiinta iyo cid kasta oo danayso arrimaha Soomaaliya ee ku saabsan doorashooyinka. sidaa darteed waxaan leeyahay fadlan hala raaco, annagana ishaan ku haynaynaa. dhowaanna waxaan soo saarayaa guddi ka socda ururada bulshada oo goobahaas kor joogteeya, observers, hadduu alla subxaanahu wa tacaala idmo. mudanayaal iyo marwooyin, marka laga soo tago doorashada, waxaa sidoo kale muhiim ah xilligan oo kale in la diyaariyo qorshaha xilliga kala guurka si loo horumariyo nidaamka dowladnimada, looguna fududeeyo dowladda imaanaysa howlaheeda si uusan waqti uga lumin, dibna aysan u soo bilaabin howl kasta. mudanayaal iyo marwooyin, anigoo tixraacaya qorshaha 9aad ee qaranka iyo barnaamijka xukuumadda, kulamadan iyo wada tashiyadan waxaan rajaynayaa in ay nooga soo baxaan xogo iyo daraasado dhammaystiran ee ku saabsan heerka uu marayo geedi socodka dhismaha dowladnimada xilligan, talooyin wax ku ool ah oo ku saabsan dardargelinta iyo dhammaystirka waxyaabaha dhiman si loola wadaago dowladda imaanayso, hadduu alla subxaanahu wa tacaala idmo. sidoo kale caqabadaha iyo fursooyinka hor yaalla geedi socodka dhismaha dowladnimada in loo gudbiyo, waxqabadkii iyo horumarkii la sameeyey ay samaysay xukuumadda iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda in loo gudbiyo iyadana. sidoo kale wixii gaabis ku yimid, caqabadaha lala kulmay iyo fursadaha jiro, sidoo kale qorshayaasha iyo mashaariicda socda iyo heerarka ay marayaan, iyo ka tala bixinta howlaha hortebinta u leh qaranka iyo dowlad dhiska Soomaaliya
marxaladda ay maanta marayso. mudanayaal iyo marwooyin, saad ogtihiin xilka dowladnimadu waa qor isku dhiib. sidaa darteed qorshaha xilligan kala guurka wuxuu halbowle u yahay dowlad wanaagga iyo habsimo u socodka dowladnimada. waadna ku mahadsantihiin doorka muhiimadda leh ee aad ka qaadateen, haddana aad ka qaadanaysaan. mudanayaal iyo marwooyin, mar kale ayaan idinkaga mahad celinaya ka soo qaybgalkiina. waxaan doonayaa in aan joogtayno dowladnimo iyo dadkeena udhexaad u yihiin afkaarta, talada iyo tusaalaha bulshaduna ay yihiin tiirarka lagu dhisi karo qorshayaasha hortabinta u leh qaranka. kulankana waa inoo furan yahay. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.